Todobada dhismo ama todobada guri ee ugu yaabka badan dunida. Aan ku bilaabo number 1. Guriga labada dhagax. Gurigan ayaa waxa uu u dhisan yahay sida laba dhagax, midna yaalo geeska midig, midna yaalo geeska bidix. Gurigan waxaa la dhameystiray 1974, wuxuuna ku yaalaa dalka Talyaaniga. Inta badan gurigan waxaa la tagaa xilliyada qaboobaha, waxaana la sheegay inuu yahay guri wax walba ay u dhameystiran yihiin haddii la dhaho meelo lagu nasto iyo sidoo kale meelo lagu dawaashaba. Number 2. Gurigii kabaha jacaylka. Gurigan oo u dhisan sida kabaha ay xirtaan ragga waxaa la dhisay 1940, wuxuuna ku yaalaa magaalada Maqloheezi. Guriga kabihii jacaylka waa guri dadka degan ay aad ula dhaceen. Waxaa la sheegay in inta badan ay xaysiis ku sameystaan dadka kabaha ka ganacsada. Number 3. Gurigii farshaxanka. Gurigan waxaa ku nool famil iyo labadooda caruur. Waxaa gurigan u soo dalxiis tagta inta badan arday wax ka kala barata daafaha caalamka. Gurigan waxa uu ku yaalaa dalka Mexico, isagoo la sheegay in fakarka sameyntiisu uu lahaa nin u dhashay Mexico. Gurigan waxa uu ka samaysan yahay waxyaabo organic ah oo badda laga soo saaray. Number 4. Gurigii kala gediska. Gurigan ayaa waxa uu guryaha kale kaga gedisan yahay. Madaxiisa ayaa waxa uu jiraa hoos, meeshii dhulka ahaydna waxay jirtaa kor. Waxa uu ku yaalaa dalka Poland, waxaana la sheegay inay sanadkiiba u soo dalxiis tagaan dad fara badan oo ay cajiib la tahay guri noocan ah, iyadoo la sheegay in dad fara badan aysan rumaysnayn, waxayna moodaan guri dumay ilaa ay arkaan ayna kor tagaan dhismaha gurigan. Dhismaha gurigan waxa uu qaatay ilaa 114 maalmood. Number 5. Guriga diyaaradda. Gurigan waxaa loo sameeyay sida diyaaradda oo kale, waxa uuna ka kooban yahay in ka badan 50 qol. Waa loo soo dalxiis tagaa iyadoo habeenkii lagu seexdo ilaa lacag gaaraysa ilaa $2,000 Mareykanka ah. Guriga diyaaradda waa guri ay u dhameystiran yihiin dhammaan agabkiisa. Markii aad rabto inaad fuusho jaraanjarta gurigan, waxaa lagu furayaa remote. Number 6. Gurigii noloshu waa safar. Gurigan waxa uu u samaysan yahay sida gaariga oo kale, nin ayaana u dhistay xaaskiisa iyo caruurtiisa. Waxa uuna sheegay in dhisidda gurigan ay qaadatay muddo ama waqti aad u dheer. Number 7. Gurigii noloshu waa hees. Gurigan waxa uu ka samaysan yahay kataar iyo piano, waxaana uu ku yaalaa dalka China. Waana guri ay muddo dheer qaadatay dhisiddiisa. Gurigan ayaa waxaa dhismihiisa la dhameystiray sanadkii 2007.